waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada f c t v barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadanaynaa arrimaha falanqaynta siyaasadda xaggee ugu dambeysay xaggee maraynay waxaa ugu dambeysay dhuusamareeb ficiladii ka dhacay oo ahaa kulankii ballaarnaa ee maamul goboleedyada oo 5 maamul goboleed isugu yimaadeen maxaan ka filaynaa kulankaas ma kula ahayd inay ka soo baxayaan wax macquul ah ma kula tahay maaragtay madaxweyne qoorqoor inuu yahay nin lagu kalsoonaan karo inuu Soomaali isu keeno ninka u bareeray inuu xoog xukunka ku qabsado ninka u bareeray inuu laaluush bixiyo ninka u bareeray inuu dhiig u daadiyo inuu madaxweyne ka noqdo galmudug miyaa maslaxadda Soomaaliya ka shaqeynaya maxaan ka filaynay waxaan ka filaynaa halkaas ka garanaysaa kamaana filayn inuu maaragtaa Soomaaliya uu wax ka qaban karo maamul goboleed isu keeni karo maamul goboleedyadana chance bay siiyeen chancekiina uu ka faa'iideysan waayo waa tan isla intuu kulankii socdaba ay yimaadeen dowladda federaalka kuwaas oo ah kuwii asaga magacaabay oo meesha keensaday oo qarashka geliyey oo xoogga geliyey oo dhiigga u daadiyey marka maxay ahayd waxa laga filayo kale meeshaas oo meesha imaan karay sidaan la soconno Puntland way yimaadeen ayagoo og weliba in madaxweynahan uu ku yimid si xaq darra ayagoo og in madaxweynahan uu xilkii iyo xukunka uu kursiga uu ku fadhiyo uu ku yimid si musuqmaasuq ah iyo si xoog oo dhiig loo daadshay taasoo ay wateen oo meesha ay keensadeen Khayre iyo Farmaajo way ogaayeen laakiin waxay islahaayeen bal maslaxadda Soomaaliya fiiriya heerka bini'aadamku uu kala jooga fiiri ninkii xumaaba wuxuu isleeyahay bal niyahow maanta ama maaragtay ninkan uu sidii hore iska bedelaayo oo Soomaaliya maanta uu maaragtay wax ka oran karta warniyo sidaa ka daaya aan isugu nimaano runta laakiin ma dhicin wixii laga filayay iyo wuxuu ahaa qofku wuxuu yahay iska bedeli maayo haddaa tahay afmiishaar laaluush qaataa tuuga maaragtay garab ku xiran maaragtay yaqaana gruubeysi Soomaalinimada iyo midnimada iyo dadnimada midna waxba kula ma aha waxay kula tahay ma jirto ninka la yiraahdo qoorqoor waa ka naqaana qoorqoor maxaa laga filayay wixii laga filayay waa sameeyey oo ah ayadoo fadhigii loo joogo oo arrimaha dalka laga tashanayo inuu madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ku marti qaaday maxaa la yiraahdaa halkaasna nimankaasna ay yihiin niman aan dalkan rabin inay maaragtay kursiga baneeyaan oo aan rabin dalkan inay maaragtay cid kale siyaasaddiisa ka hadasho oo maaragtay nimankan Khayre iyo Farmaajo dalkan waxay u soo mareen xukunka inay xoog ku haystaan waxay ka soo shaqeynayeen 3 sano oo la soo dhaafay shacab bay u dileen shacabkii u laayeen oo waxay u laayeen niman askar bay u laayeen oo waxay u dhaawaceen siyaasiyiin waxay xanibeen oo socodkii ay u diideen madaxweynihii galmudug oo cadaadis la saaray xaaf oo xilligaas oo loo diiday inuu diyaaraddiisa soo aado meesha la yiraahdo cadaado soo aado asagoo Hargeysa jooga waxaa socodkii loo diiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo inuu Kismaayo aado loo diiday waxaa loo diiday Kismaayo inuu aado diyaarad u qaato sheekh shariif madaxweynihii hore oo intaa waxaa sameynaya waa Farmaajo Khayre waxaa haddana loo diiday mar labaad inay safar u aadaan meesha la yiraahdo beledweyne oo dhibaato la geliyey oo khatar la geliyey madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif u fiirso waxaa kaloo dhibaato la geliyey amnigiisana khatar la geliyey madaxweynihii galmudug xaaf mar labaad oo dhuusamareeb goodoon lagu geliyey oo la iska hor keenay asagii iyo wasiiradiisii asagii iyo baarlamaankii intaasoo dhan la isticmaalayo qaab maafiyanimo oo maaragtay laaluush iyo maaragtay sidii loo dhaqmayo drug dealerkii oo kaleeto waxaan siyaasad maaha siyaasaddu way dhaaftay siyaasadda waxaa lagu yaqaanaa waddan markaa madaxweyne ka tahay waxyaabaha qaar inaa ka xishooto waxyaabaha qaar inaa ka gabato oo maaragtay aa u dhaqanto si nin madaxweynaha maahan maaragtay inaa maaragtay aa u dhaqanto sidii nin maaragtay jiriya oo tuuga oo maaragtay beenlowga marka qoorqoor iyo Farmaajo iyo maaragtay Khayre inay isku group yihiin waa ogeyn shirkan markii maamul goboleedyada imaanayeenna waxaan leeyahay wareedha maxaa jira macdan baa laga heesayaa ninkay isugu yimaadeen gurigiisa soo maaha qoorqoor ma qoorqoor baa tala kale waddankan u soo wada ma laba qoorqooraa jirta mise hal qoorqooraa jirta qoorqoor soo ninkii maaha inta iyadoo tafaraaruq uu jiro
xildhibaano beena inta meesha lagu aasaaso lacag lagu sameeyey xildhibaano beena oo galmudug uu maamul galmudug aan jirin meesha ku aasaasay oo wasiirro beena iyo wax walba samaystay oo haddana gruubkii yidhi waxaas ma jiraan waa kasoo horjeednaana xabadda ku bilaabay oo xoogga xabadda meesha uga qabsaday maxaa kaloo sugayne ma shacabka waxa sugayna intay qori qaataan in laislaayo maya laysma laynayo wuu haystaa xoogu ku haystaa waa ognahay laakiin ninkii sidaas ahaa miyaa marka soomaaliya danaheeda iyo ka shaqaynaya iyo horumarkeeda oo maaragtay wax macquula maaha waxyaabaha qaarna waa waxyaaba maaragtay dhici kara waxyaabahana qaarna waa waxyaabahan dhici karin marka sidaan ognahay madaxweyne farmaajo ma doonayo inuu waddankan sharcigiisa uu raaco ma doonayo dastuurka la dhigtay inuu raaco ma doonayo doorasho inuu qabto ma doonayo xuquuqda aadanaha inuu dhowro ma doonayo inuu maaragtay ilaaliyo hantida qaranka oo uusan u isticmaalin musuq maasuq ma doonayo wuxuu doonayaa inuu maaragtay waddanka uu gacantiisa ku jiro si allaalesee ku timaadaba hadduu hantidii musuq maasuq aan u adeegsado oo dadkii xildhibaanadii siiyo hadduu maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyada faragelin ku suubiyo hadduu ciidamadii faragelin ku suubiyo ciidamada qaranka sharci bay leeyihiin waxaa loogu talagalay amniga dalka inay ka shaqeeyaan ma aha inay weeraraan niman madaxa oo maaragtay aan cidna weerar ku ahayn oo meel degan guryahooda inay weeraraan maaha nin aan hubaysnayn baa ciidan militariga gurigiisa weeraraya maaha ciidamada siday ku shaqeynayaan si qaldan wey ciidamada kuwii weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur waa qaldanaayeen kuwii weeraray guriga sheekh shaakir iyo macalin maxamuud way qaldanaayeen oo dadka ku laayay kuwii weeraray gurigii senator cabdi qaybdi way qaldanaayeen intaasoo amaraan waxaa bixiyey madaxweyne farmaajo balfiiri wuxuu ku dhaqmaya madaxweynahaas waxaa kuu soo haray golaha shacabka federaalka golaha shacabka madaxweyne farmaajo wuxuu qarash ku bixiyey sidii maaragtay loo dooran lahaa asaga madaxweyne u noqon lahaa wuxuu ka tuuray bosishinkii uu fadhiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari oo ay ka dhacday taariikh aada u xun oo maaragtay sharcigii waddanka lagu cayaaray oo ay noqotay madax furashan u haystaa ama xilka isaga deg ama maaragtay waxaan kugu kicinayaa canaasiir madax furasho in laysku qabsado in maaragtay lifeka dadka qofkii waxgala in maaragtay noloshiisa khatar la geliyo oo maaragtay xabsiga laysaga tuuro waddankan waxa uu ka wado madaxweyne farmaajo wax hore usoo maray maaha markaan fiirino yaa ugu dambeeyey madaxweynihii ugu dambeeyey oo sidaa u dhaqma keebuu ahaa isweydii madaxweynihii ugu horreeyey oo sidaa u dhaqma keebuu ahaa wuxuu ahaa madaxweyne maxamed siyaad barre madaxweyne kale kama dambeyn oo 4.5ka ay isku laf ka soo galaan farmaajo hadduusan adeerkiisa ahaynba ma oran karnaa marka dhaqankan iyo kaartooyinka noocaana waxaa falkinaya saraakiisha hoos fadhida ee ah kuwii retireka ah oo la shaqayn jiray taliskii faashiga maxamed siyaad barre dadkii la shaqayn jiray inay la joogaan oo waxaan ay ka shaqaynayaan waa wax macquula waa wax dhici kara waa wax maaragtay aan aragno saansaanteed waa waxaan aragnay dhaqankeeda dalkan ma ahan dal nabad ahaa oo barwaaqo iyo maaragtay colaad aysan ka jirin ma aha dalkan waa dal colaad kasoo kabsanaya ma ahan dal siyaasaddiisa maaragtay lagu hogaamin karo siyaasad game lagu cayaari kara ma aha waa danger waa khatar waaye ma ahan wax easya in dal haddeer ka soo kabsanaya colaad iyo dagaal sokeeye oo si laysku aamino maadaama lays aamini waaye layidhi federaal aan ka dhigana waddankii oo magaalo walba ayada inay maaragtay arrimaheeda qaaska oo localka ay ayada ka shaqaysato ammaankeeda security-ga amniga magaalo walba gobol walba inay dadkiisa doortaan oo dadka magaaladaas jooga saraakiishii noqdaan booliskii amnigii sugaan maxkamadeeda yeeshaan maamulkeeda yeeshaan federaalkaas waxaan u samaysanay maadaama ay jirto maaragtay cuqdad fara badan la kala qabo dhibaato fara badan hore loo soo maray wax badan maaragtay la kala tabanayo 30 sano la isdirirayay dal sidaasa wuxuu doonayaa inuu systemkii lagu heshiiyey oo haddeer rafaadka lagu keenay 30 sano wixii lasoo aruurinayo oo laawalwalayaal waddankaa dhisano wixii laysu keenay wuxuu doonayaa inuu
u maaragtay xaggaa ka qabsado oo yidhahdo xoogan ku maamulaya marka ma aha wax macquula mana aha wax soconaya waana maaragtay weji gabax waana maaragtay waxaa maaragtay dalkan u keenaya maaragtay arrin aan maaragtay waa qof walba uu dareemi karo bulshada caalamka United Nationka way arkaan laakiin dalalka adduunka oo dhan oo United Nationka ka midka ah qaarkood inta muhiimka inta waaweyn waxay ka shaqeeyaan danahooda gaarka haddii farmaajo uu ogolaado danahooda gaarka dheg jala qusiin maayaan wuxuu dilo iyo wuxuu qaso iyo wuxuu sameeyo danka male wuxuu dilo danka male xuquuqda insaanka hadduu ku tunto human rightska hadduu maaragtay dadka uu diido inay maaragtay hadlaan xabsi hadduu ku guro dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo human rightska iyo cid la hadlaysa male farmaajo hadduu ogolaado danahooda gaarka ilaa adduunka wadan walba wuxuu leeyahay dan buu leeyahay Soomaaliyana waa dhul maaragtay waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah waxay leedahay resource badan oo macdan ha noqoto shidaal ha noqoto kalluumaysiga ha noqoto beeraha ha noqoto dhagaxa iyo ciidda ha noqoto waxyaabo fara badan oo adduunku wax laga soo saaraa Soomaaliya laga helaa marka waxaasoo dhan hadduu wax uga ogolaado cid la hadlaysaa ma leh tusaale u soo qaado ra'iisul wasaarihii Itoobiya Mille Zanaawi wadanka Itoobiya wuxuu ku hayay caburin iyo xoog Soomaalida Itoobiya wuxuu ku hayay caburin iyo xoog wuxuu u samaystay Soomaalida Itoobiya jeel la yiraahdo jeel ogaadeen dadka inta maalinta duurkii gaariga lagu xiraa lagu jiidayo qof inta gaari lagu xiro lugiis inta gaari lagu xiro baa magaalada lix marnay lagu jiidayo heerkaas adduunyada dhan way aragtay laga hadlimay cid ka hadlaysa male haddii wadanka madaxweynaha jooga uu siiyo wadamada maaragtay tunka weyn sida Mareykanka Ingiriiska Faransiiska iyo wadamada maaragtay caalamiga hadday China iyo hadday siiyaan interestiga ay leeyihiin wadanka hadday uga ogolaadaan daasid madaxweynahaas uu gudilayaa laakiin hawshii u taallaa waxay u taallaa siyaasiyiinta shacabka culimada in lagu gorgortamo dhiigooda ama in diyaar u yihiin in maaragtay wadankan uu galo waxa la yiraahdo kalitalis xoog la isku haysto hadday diyaar u yihiin hadee falta ku soo dhawaada gumaysiga cusub wadankan maaha wadan hadda gumaysigu ku cusub yahay gumaysi shisheeyuu soo maray mid sokeeyuu soo maray siyaa barraa intaas ku haysta xoog ku soo dhawaada ولا لا دغال ما والبا soo beentay Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay waa la bixiyay shabaab qabsaday ma ka xoog badan yihiin dadkan kama xoog badan wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi hadaysan joojin waa bixinayna saakin 12 markii lixdii yaroornimaan aniga hargeysa ilaa saacada diyaaradda soo kaysa sabataas dawladda federaalka igu celisay 5 saacadood ay iga celisay diyaaraddii oo wax kasta lagu gurguriyay horta inta ogaada oo maskaxdayna sii galay dagaal cidiyadina oo aan fiicnay ayaa muuqda waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada iyo dawladaha adduunka iyo UN-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelinta oo dawladda federaalku nagu haysaa waa araxjab reer galmudug loola jeedo inaanu ka fiirsanno oo aanu kulligeen ogaanno oo aan iska ilaalino kuwa naloo soo diri doono reer galmudug oo iska ilaaliya kuwa naloo soo diri doono
wallaahi waa masaamiir indhaha idinka mudaysa wallaahi masaamiir indhaha idinka mudaysa weeye ma aha dad caadi ah ma aha ummadaan aragnay ilaahay ha naga celiyo annaguna aanu iska celino reer galmudug waa tahay wuxuu yidhi madaxweyne xaaf waa masaamiir indhaha idinka mudayso way ka mudde masaamiirta indhaha way ka mudde galmudug maxaa la yidhaahdaa dadka galmudug dowladdooda waa la burburiyey dhiig baa lagu daadsay dad baa lagu laayey xoog baa lagu qabsaday sheekh shariif waa arkaysa waa dhaaranaya waa saaraynaa yidhi mooryaantii la saaray iyo kalitaliskii la saaray waxba kama dugna waa saaraynaa bal fiiri madaxweyne farmaajo khatarta uu gelinaya dalka dagaal sokeeyuu qarka u saaray dagaal sokeeye ayuu qarka u saaray bal waddankan united nationka inta qarash ku bixiyeen iyo european unionka lacagta ay ku bixiyeen si waddankan mar dib ugu soo laabto dowladda turkiga qarashka ay gelisay iyo xoogga ay gelisay waxa adduunyada ay ka soo martay iyo waxa uu isaga maaragtay waxa askar dad Soomaaliyeed ay ku dhinto oo maaragtay waddanka difaaciisa iyo sidii loo soo celin lahaa fiiri sidii loo kala dugan yahay haddana waxay u egtaa arrintiisa arrin beegsi ah inuu maaragtay beesha hawiye uu si gaar ah u raadsanayo kale dadka culayska ugu weyn uu saaray waa maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed intaba beesha hawiye wax ka degaan ama ay wada leeyihiin iyo gobolka banaadir wuxuu weeraray waa siyaasiyiintii beesha hawiye taargad caadiya maxaa macnuhu waa maxay adeerkiisiyaa barreeyaa waddanka ka saaray hawiyaa ka saaray waxay noqon kartaa inaanba la heshiin oo waddanka la kala aarsanayo oo ninkii xilka qabtaaba uu markiisa aarsanayo laakiin beesha hawiye u malayn maa arrintan inay ku jirto sababtoo ah tusaale markaa usoo qaadatid sheekh shariif xilka wuxuu ku wareejiyey si nabada asagoo aan cidna la dagaalin asagoo aan cidna xagxagan asagoo aan cidna maaragtay dhibaateyn waa laga guulaystay waa wareejiyey xasan sheekh maxamuud waa la wareegay waa laga guulaystay waa wareejiyey ciduu weeraray xasan sheekh maxamuud ma jirin ciduu la dagaalay ma jirin maamul goboleed uu burburiyey ma jirin ma jirin doorasho iyo wadatashi uu diiday maxaa u diiday intaas ayuunu sameeyo ma aha nin reer baadiye ah ma aha askari aan waxba baranoo oo xoog keliya yaqaanana maaha waa nin wax soo bartay nin magaalo joogi jiray nin waddan dimuqraadiya ka jirtay doorasha ka dhacdo joogi jiray oo codayn jiray oo madaxweyne blo maraykana soo maray intuu joogay codkiisa wuu tuurtay wuu dhiibtay maanta maxaa diiday marka arrintan waxay marka u eg tahay inuu ninkaanu doonayo booskii kalitalisnimada ee siyaa barre uu baneeyey inuu la wareego oo dalkanna wuxuu ku haysto musuq maasuq iyo inuu ku haysto waxa la yidhaahdo xitaa hadda shacabkii ayaa faham fanaaniintii ayaa waxay ka taagan yihiin qaati bilaah oo ay leeyihiin madaxweyne maaha waa beenlow waa siday ku leeyihiin madaxweyne maahan waa beenlow waa nin aan maaragtay loo dul qaadan karin oo hadda waayaha cusub waxay marayaan inay ka soo saaraan heestii labaad haddayse tii saddexaad ahaynba oo ay maaragtay kula dagaalayaan farmaajo tahay abaallaawe waa maxay abaallaawe madaxweyne farmaajo dadka deegaanada gobolada galmudug iyo koonfur galbeed iyo jubbaland aanada hirshabeelle waxay u soo dhoweeyeen si aan caadi ahayn waxay u soo dhoweeyeen si sharaf leh aad bay maaragtay markii la doortay ugu farxeen laakiin abaallaawe ayuu ku noqday oo wuxuu sameeyey
inuu maaragtay inkiro soo dhaweyntoodii, inuu faquuqo, inuu amnigoodii iyo xorriyaddoodii uu ku tunto, in maaragtay dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen magaalada muqdisho hal maalin inay dhimato 1,000 qof oo qaraxii soobe iyo qaraxyadii kale tirada badnaa is xigay. maaragtay maaha wax halkan lagu soo koobi karo waxa uu u geystay shacabka. abaallaawe abaalkii loo gala ma garto. dadkii u codeeyey oo soo saaray waxaa ka mid ka ahaa ninkii la oran jiray cabdiraxmaan cabdishakuur oo codka siiyey farmaajo taageersanaa kana soo horjeeday xasan sheekh maxamuud. wuxuu ugu abaalguday inuu gurigiisa ku weeraro, wuxuu ugu abaalguday inuu maaragtay inuu dilo uu qaarajiye uu doonayay, laakiin ay u suurtogeli weyday. ilaahay amarkiisa qofka alla dilaa dhinta, wuu dilay, laakiin ninkaa xagga alla kama uusan dhiman, laakiin xagga farmaajo uu ka dhintay. waxaan halkan uga mahad celinayaa waayaha cusub oo gartay xumaanta iyo eebdarrada uu wado farmaajo, siday u garteen maaragtay caqligooda wanaagsan iyo maaragtay xirfadoodana ku muujiyey eebdarrada iyo waxa uu wado. aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. maaragtay wax lasoo koobi kara maaha. heestii labaad way heestaan hadda arkayo. mar horena fahmeen inuu ninkan yahay ninaan dan Soomaaliyeed wadin. maaragtay dadka taageera ee asaga la socdana ay yihiin kuwa laaluush qaatayaal ah, calooshooda maaragtay ku siman oo caqli kale aan jirin. waa tahay farmaajo ummadda ilaahay way wada fahantay, culimmadii aa fahantay, waxaa fahmay fanaaniintii, waxaa fahmay barofesoradii, waa aragtay si ay uga wada hadlayaan qaladaadkiisa. waxaa loo jeedaa inuu dalkii khatar geliyey midnimada Soomaaliya, wadahadalkii Soomaaliya iyo Somaliland, in hortiisa laga sheegay in Soomaaliya iyo Somaliland ay laba wadan kale yihiin oo uusan jawaab ka bixin. ninkan waa disaster, waa nin halis ku ah jiritaanka Soomaaliya. waxaaba shaki ka jira war ninka ma wadankan loo soo diray inuu baabi'iyo oo qandaraas miyuu ku soo qaatay. waa wax u ekaan kara oo dhici kara. ninkan wadanka inuu qandaraas ku soo qaatay waa wax dhici kara oo loo malayn karo. tilaabooyinku qaadaa keenaya, tilaabooyinku qaaday waa tilaabooyin Soomaali kala fogeynaya, waa tilaabooyin Soomaali midnimadeeda baabi'inaya,
waa tillaabooyin baabiinaya dimuqraadiyaddii, waa tillaabooyin ka soo horjeeda axdigii lagu heshiiyey Soomaaliya lagu mideeyey iyo awood qaybsigii. wax walba tillaabo walba qaado waxay ka soo horjeedaa danaha Soomaaliya. waxba ha fiirin darbiyadu rinjiyey iyo meelaha uu dhisay. nin walba raba inuu saldanad noqdo waddanka xoog ku haysto wuu quruxsanayaa wadooyinkiisa. waddanka haddaad rabto inaad xoog ku haysato saa dalal kaleeto xoogaa baawar u muujisay waa inaad darbi rinji ku qortaa, meel walbana masawirkaaga ku dhejisaa. ninkan dhaqankiisao dhan waa dhaqan kale talis, meel walba maxaa masawirkiisa ku dhejiyey? dalalka adduunka aan joogno dhan, bal ingiriiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska meel walba masawirkiisa kuma dhegana, maaragtay Kenya madaxweynaha meel walba masawirkiisa kuma dhegana, Ethiopia nagu dhegan meel walba Abiy Ahmed kuma dhegana wado walba. maxaa farmaajo wadooyinka noogu dhejiyey masawiradiisa iyo xarun walba, mid shacab iyo mid boolis. waa nin doonaya dee inuu waddanka ka noqdo Kim Jong Un oo kaleeto, raba inuu waddanka xoog ku haysto, adduunka ka reebo, waddanu madax ooga fadhiyo uu noqdo. hadda waxa weeye taariikhda maaragtay ilaahay si ka dhigay noqonaysaa. barnaamijkana intaasaan kusoo koobayaa caawa. waxaan kaga tegayaa heestii Abaallaawe iyo waayaha cusub.